bilaal radia allaahu canhu bilaal alxabashi radia allaahu canhu maalintuu dhimanayey ee sankaraadkuu qabtay ayay islaantiisu dul barooratay ku tidhi waa xasrataah waa xasanaah waa darabaah markaasuu indhaha kala qaaduu ku yidhi na aniga ha igu dul dhawaaqinu ha igu dul ballanbalinu ha igu dul qalyine waxaad tidhahdaa quulii waa farxataah waxaad tidhahdaa waa farxadda buu ka yidhi markaasay ku tidhi maxaan ku farxa sawdiga iga dhimanayo maa wuxuu yidhi hadan nalqa alaxibbah muxammadan wa saxbah anu beritoola waxaan la kulmayaa nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii baan la kulmayaa jeelkaan ku jiray baan ka baxayaa jannadii muxamed uu galay baan galayaa buu leeyahay limaada lianna bilaal radia allaahu canhu mubashir biljanna buu ahaa mubashir biljanna habeenkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam micraajka markuu soo noqday nebigu waa kii ka yidhi bilaal innii samictu dafana calayka amaamii fi ljanna yaa bilaal shanqadhaade kabahaaga shanqadhoodii ayaan jannada hortayda ka maqlee maxaad igaga badisood halkaa ku gaadhay buu rasuulku yidhi wuxuu yidhi yaa rasuul allah anigu waxaan laazimaa tahaaradda ayaan laazimaa meesha weysadu ay igaga jabtana waan ku weyse qaataa deedna salaadna ilaahay inuu ii qadaray baan tukadaa intuu alla ii qadaray baan tukadaa markaa buu nebigu ugu jawaabuu ku yidhi haadihi hiya alatii balaqadka ta aad maqaamka ku gaadhay waa weyseqabka aad laasimtay iyo markaad weyse qaadataan labada ragcadood ee tukanayso taad maqaamka ku gaadhay waa taa buu rasuulku yidhi walaalayaal qofka bini'aadanka waxa darajadaada kor kuu qaadaaya ee qiimo kuu yeelaaya maaha lacag maahin qabiil maahin cilmiga maadiga dadku maanta ay run moodayaan maaha maaddada iyo daaraha lagu tartamaye waxa qofka bini'aadanka kor u qaadaaya waa iimaankii camalka saalixa ah man kaana yuriidu alcizata falilaahi alcizatu jamiica wuxuu siiyey wuu sii kaa yaa mucaad waxaan kugula dardaarmayaa buu nebigu ku yidhi laa tadacanna fii duburi kulli salaa an taquul allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika yaa mucaad waxaan kugula dardaarmayaa salaad walba gadaasheeda inaanad ka tegin inaad tidhaahdid ilaahu aniga waxaad igu kaalmaysaa ilaahu waxaad aniga igu kaalmaysaa daacaddaada iyo dikrigaaga iyo cibaadadaada teeda wanaagsan cibaadada wanaaggayga maadda nebigu ma siinayo ninka uu jecel yahay adduunye ma siinayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shakhsiga uu nebi maxamed jeclaado waxaa la siinayaa acmaal ilaahay u dhowaynaysa waxaa loo sheegayaa ducada ilaahay jalla wacalaa khasaa'inta ilaahay furaheega lagu furanayuu nebigu siinayaa walaa adri habeenkaa mucaad binu jabal kayfiyadee buu ku seexday ubay bnu kacab yaa ubay ina allaha amaranii an aqra'a calayka lam yakun aladiina kafaruu wasammaanii buuhi yaa rasuula allah rasuulki ilaahay baa kule ubaya bnu kacab waa niga ugu akhrista fiicna qur-aanka ilaahay ayuu nebi maxamed leeyahay yaa ubaya bna kacabow rabbigay baa i amray inaan kugu dul akhriyo adiga dushaada suuratu lbayina lam yakun aladiina kafaruu markaasuu yidhi wasammaanii ma rabbigayba anigay magacaabay markaasuu yidhi haa subxaana allah farxadduu ku seexda habeenkaa saxaabigaasi bal ka warrama tasawaruu takhayaluu bal ka fikira ilaahay baa magacaabay oo leh yaa muxamed yaa jibriil u sheeg nebi maxamed waxaad ku tidhaahdaa ubaya bnu kacab suuraddaa korkiisa ha ku akhriyo ma rabbigay baa i magacaabay haa fabakaa ubay farxad buu la ooyey farxad yabkuun min shiddati alfarax maxaa dadkaa ilaahay ku jeclaaday hawadooda may raacin hanuunkay raaceen shahwadooda may raacin shariicadday raaceen baatilka may raacin xaqa ayay raaceen naftooda may adeecin ilaahay bay adeeceen diintan islaamnimada innaku maanta aan haysanno een innakuna maanta aan ku abtirsanayno unbay ka run sheegeen bas diintu waa diintii salaaddu waa salaaddii qur-aanku waa qur-aankii xadiidku waa xadiidkii qibladu waa qibladii soonku waa soonkii masaajiddu waa masaajiddii xaggay u jeesanayay baan u jeesanaynaa suuraddii faatixadii akhrinayay baan akhriyaynaa laakiin qulubtaa isbeddeshay maanta maxaa isbeddelay
قلوب تثبت الشيء. هذا أبي بن كعب، وهذا معاذ بن جبل، وهذا بلال الحبشي رضي الله عنه، وهذه خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. جبريل عليه السلام ayaa samada ka soo daadagaya ma ku imanaya wax kale uma socdo wax kale ma sido salaaniya bishaaru sida ayuu u sida khadiija u sida radiyallahu anha umm almu'minin ya muhammad khadiija radiyallahu anha umm almu'minin waxaad u sheegtaa allah salaamka salaan uga sida waxana loo bishaareeyay u bishaaree qasri jannada ku yaalay gali doonta qasri oo markay gashana وحصى وحنا إيا اللغوية إيا قيلوها بيراتي أيسا مغلي دونين با لو بشاري وبشاري بوكيدي. خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ولا لي البشر كان بني آدم كان إلهي نقو قيمين ما يا قبيل إلهي نقو قيمين ما يا العق إلهي مادة نقو قيمين ما يو إلهي وحاو نقو قيمين وإن أكرمكم عند الله أتقاكم ما شاء دون تجوب طبقات دون تكجر waxa ilaahay kugula xisaabtamaya waa iimaan iyo alla ka baq weeyaan. ballankiisa ilaahay kama bixin mana baajin innaka asbadila ilaahayna isma badilin jalla wa ala. fanattabi' al-huda hanuunka haddaan raacno oon hawadeena ka soo hadhno ilaahay tabaaraka wa tacaala siduu dadka raalliga uga noqday ayaa ilaahayna kana raalliga nooga noqon. markuu muslim iga dhigay oo muslim adigana ka dhigay oo khayr baa ilaahay kula doonay. nicmadan wadan hoos aanu eegno nimba dayman qaali yusita nin tuuga ayaa arkay wuxuu rabaa daymanka dahabka qaaliga inuu ka dhaco ka xado waxa uu ku yidhi halkaad u socotaa wuxuu tuulada baan u socdaa aniguba tuulada baan u socdee han israacnayna mari buu ka yidhi waa tuug tuulada isagu ma socdee jawharadan iyo daymanka qaaligu ninkani watuu rabaa inuu ka dhaco ka xado maalintii oo dhan way socdaan habeenkii ninkan waa daacad oo iska seexdaa laakiin tuugga habeenkii ma seexanaya uu shaqaystaa markaasuu saqdii dhaxa uu baadhaa jeebadihiisoo dhan buu ka baadhaa uu ka waayaa waa berigana wuxuu arkaa ninkii oo gacanta ku haysta oo la soo baxayoo eegaya xeraysanaya wuu yaabaa war waa kan habeenkii oo dhan waan raadiyaaye habeenkii xaguu dhigaas maalintiina u haystaaye haddana habeenkii kalaa soo galay sidii iyo sillimada uu arkaa isagoo haysta habeenkiina uu ka waayaa maalinkiina wuxuu arkaa ninkii oo haysta magaalada u socdaan markay u dhawaatay runta u sheego wuxuu ku yidhi anigu tuulada baan u socday waxaana ku soo raacay jawharada qaaliga inaan ka dhacon ka xado maalinkiina waan arkaa adoo haysta habeenkiina waan ka waayaa habeenkii halkeedgiisa buu ka yidhi wuxuu yidhi cadceedu markay dhacdo dhulku madoobaado ayaan jeebadayda ka soo saaraayo jeebadaadan ku ritaa buu ka yidhi xaguuna ka raadinaya isagu yaa jawharada qaaliga isagii jeebadiisa ugu jirtaa habeenkii laakiin meel kale uu ka raadinayaa mithaalka maxaan u soo qaadanayaa war waxaan ku liibaanaynaa adduunkan iyo aakhira innaka haysanna waa ilaahay amarkiisa waa islaamnimadoon sideeda u qaadanno waa qur-aanka kariimkoon barannoon ku camal falloon ka shaqayno oo wuxuu noo xalaaleeyeyna aan xalaalshanno waxa uu qur-aanku naga xarrimayna aan xaaraan u aragno nebigeenni moxamed aha calayhi salaatu wasalaamna aan ku dabadayanno taasay liibaantu ku jirtaa laakiin maanta liibaanta muslimiintu meel kale ka raadinayaan amniga meel kale ka raadinaynaa ilaahayna amniga iimaanku ku sheegay alladina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum al-amnu wa hum muhtadun alladina aamanuu kuwii ilaahay rumeeyey tabaaraka wa tacaala walam yalbisuu iimaanahum bidulm iimaankoogana shirki aanan ku ladhin amniga kuwaasa helaya baa ilaahay yidhi amniga ilaahay ciidan kuma xidhin dowladna ilaahay kuma xidhin ilaahay amniga waxa uu ku xidhay iimaan dhaba ilaahay ku xidhay hadday dadku iimaan dhaba la yimaadaan oo iimaankooga shirki ayna ku ladhin ilaahay ballan wuxuu qaaday iimaan amnina inay helayaan hanuunkana inay kuwaas ay mutaysan yihiin nolol wanaagsan baan doonaynaa kulligeen soo ma rabno
ilaahay nolosha wanaagsan wuxuu ku sheegay iimaanka iyo camalka saalixa man camila saalihan min dakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuxiyannahu xayaatan طayiba ilaahay baa leh iimaan iyo camal saalix qofka laga helo labiyo dhidig midku dooni ha noqday baa ilaahay leeyahay waxaan ku noolaysiinaynaa oon ku noolaysiinaynaa baa ilaahay leeyahay nolol lagu noolaato ugu wanaagsan nolosha adduunyada ugu wanaagsan ee ugu macaan waxaa ilaahay ku bixiyaa iimaanka iyo camalka saalixa innagu waxaan leenahay maanta iimaankiina waan leenahay salaadiina waan haynaayo oo camal saalix bay ka mid tahee noloshii wanaagsaneeda ilaahay ballan qaaday mee baan leenahay waa kan muslimiinta maanta adduunyada ay rafaadsan yihiin ee dhibaataysan yihiin iimaanka ilaahay qur-aanka uu ku sheegayo iyo camalka saalix ee qur-aanka lagu sheegayo iimaanka iyo camalka saalixa kan maanta innagu aan haysanno ma aha waa kay saxaabadii rasuulku ay haysteen waa iimaankii qalbigii abibakar ku jiray iimaankii qalbigii bilaal ku jiray salaaddii abubakar uu tukanayey salaaddii abu hurayra uu tukanayey salaadduu cumar tukanayey ta loo jeedo waa taa weeyaan waayo dadkaasaa u ahaa iimaankii camalka saalixa maal baa ilaahay u soo qaadanayaa maal waalmu'minuuna kullun aamana billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ilaahay baa u markhaati kacay inay mu'miniin dhaba ay ahaayeen oo ilaahay ay rumeeyeen oo ergada ay rumeeyeen oo kutubta ay rumeeyeen oo aakhirada ay rumeeyeen oo rususha ay rumeeyeen maadaama iimaankoogu ilaahay uu kaamil ka dhigay kuwa loo jeedo waa kuwaasi adiga maaha iimaanka ummadda la doonay in la gaadhsiiyana waa iimaankii saxaabadii ugu nin muslima ayaa nin sheekha u yimid oo ku yidhi qur-aanka waxaan ku haynaa wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin waxaa ilaahay leeyahay waxaa xaq nagu ahaaday gargaarka mu'miniintee maanta adduunyada mu'miniinta waa kuwan dhibaataysan aawi gargaarka ilaahay wuxuu yidhi ilaahay mu'miniin buu yidhiye gargaarka ilaahay waa inoo ballan qaaday inuu noo gargaaraayo laakiin mu'miniintii qur-aanku sheegaya ma nahay maanta innagu kalimatuliimaan qur-aanka way ku taallaa laakiin mu'miniintii aawaya kalimatu taqwa qur-aanka way ku taallaa laakiin muttaqiintii aawaya kalimatulmuxsin qur-aanka way ku taallaa laakiin muxsiniintii aawaya kalimatu sabri qur-aanka way ku taallaa laakiin saabiriintii aawaya kalimatulqaanitiin qur-aanka way ku taallaa laakiin qaanitiintii aawaya kalimatulcilmi qur-aanka way ku taallaa laakiin culammadii rabbaaniyiintii aawaya kalimatudikri qur-aanka way ku taallaa laakiin daakiriintii aawaya sifaadkan qur-aanku uu sheegayaa la rabaa inay qur-aanka ku taalla maahine waxaa la rabaa waxaan qur-aanku uu sheegayo dad noloshooda ay ku qoran tahay in la helaa loo baahan yahay khilaafadii cuhmaan binu cafaan radia allaahu canhu ayaa nin yahuudiya masjiidka soo galoo yidhi aawaya qur-aankiinnii buu ku yidhi muslimiintii waxay u tilmaameen abudardaa yidhahdeen waa kan qur-aanka yagii sayidina cumar alfaaruuq radia allaahu canhu ayaa suuqa magaalada madiina soo galay iyadoo salaaddii ay dhowaatay oo dadkii bacdaaradii iyo bakhaaradii iyo baagaashlayaashii iyo dukaannadii intay alaabahoogii oo dhulka sidaa u yaalla ay ka dhaqaaqeen ay masjiidka u aguugeen aguugayaanna xagga dambe siigadiiyo boolku ka kacayo markaasuu cumar binu khadaab wuxuu akhriyay aayadda qur-aanka ninkii doonaya inuu arko aayaddaas rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah wa iqaami asalaa wa iitaa'i azakaa yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu waalabsaar ninkii doonaya aayaddaayoo shaqaynaysa inuu arkow asxaabu moxamed waa kuwaas eega buu yidhi maanta innaga suuqyadeenna walaalayaal marka alliga marka la eedaamo suuqu muslima war muslima may in caddaan oo faransiisa ayaa diinta islaamka soo galay masjiidkaa la keenay islaamnimadii baa loo laqinay muddo markuu muslim ahaa buu gabadh bay markaa isla yar sheekaysteen muslimadoo soomaaliyada gabadhii buu aabbaheedu u yimid uu yidhi gabadha waan jeclaaday ii dhisay eedna way jeceshahee odaygii baa ku yidhi dee maad islaamtay adigu haa anu muslim baan ahay buu yidhi oo dhowr sannoba islaam baan ahay dee hal maalinna masjiidka kaama arkine wuxuu yidhi dee marka la addimo muslimiinta masaajidda inta soo galaysa iyo inta hadhaysa iyomaa badan buu ka yidhi adeer aryamaa badan yaa inta hadhaysaa badan wuxuuhi inta masaajidda galaysae ku xeroonaysa xilliga la addimo anigu kuma biirine kuwa bannaanka joogaan ku biiray buu yidhi kuwaan ku biiray
marka aadaanku dhacayo la tukanayo kuwa dibadda joogaan ku jiraaya kuwa soo galaya kuma jira buuri kumana biirin kuwaas maxaad ku jawaabay waa nin soo islaamay ba hadalka leh waa jawaab meesha taala islaamnimadan ilaahay jalla wa ala waxa uu soo dejiyay ma aha inay quraanka ku qornaato ma aha inay diintu memory ay ku taala ma aha quraanku inuu awraaq ku qornaado looma soo dejin quraanka waxa loo soo dejiyay in dadka noloshooda diintu ay ku qornaato salaadii baa laynagu farad yeelay waa in la helaa boqolkiiba boqol muslimiintu salaada inay ilaalinayaan soonkii baa laynagu farad yeelay waa in ay noqdaan muslimiintu boqolkiiba boqol kuwa soomaya qadbul basarka laynagu waajibiyey waa in muslimiintu boqolkiiba boqol indhahooga ilaaliyaan xaaraanta ka dheeraada baa la yidhi waa in muslimiintu boqolkiiba boqol xaaraanta ka dheeraadaan waa in dadka muslimiintu ay noqdaan dad islaamnimadu ka shugiya laabtooda ka muuqato ninkii doonayay buu Umar ibn Khattab inuu arko aayada quraanka oo shaqaynaysa rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa bay'un an dhikrillah hayaga buu waa kuwa asxaabta nabi maxamed hal qof ku hadhi maayo suuqa ila almasjid xagee ila bayt illahi azza wa jalla allahu akbar hadday maqlaan waxay hayaan oo dhan dhulkay sida u dhigayeen ka doonaya liibaaniya guul ilaahay agtiisa taala jalla wa ala قول إلهي باهيا عز شرف إلهي باهيا يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بلال الحبش رضي الله عنه الدون مملوك أبوها ومقالة مكة لقود حدون صدور لعذابه لكن مركو أعمالي إيمان ليمدي وكان النبي محمد أوليه يا بلال حليت ولا الشنقد هذا كبها الشنقد ودي جنة هرتيدان كم مغلي حلقة محدكو قاعدين شيء برسولكو كيوري والله habeenka bilaal sidee buu ku saxday kula tahay habeenka farxad daradeed madaxweynaha ku amaanay managerkiiba ku amaanayay aabahaba ku amaanay oo ciyaalka adiga ka dhex amaanayay ilmaha marka la yiraahdo uu farxaya ninka shirkadda u shaqeynaya marka la yiraahdana ninkii shirkadda iska lahaa ee company-ga lahaa ayaa shaqo fiicnidaada hadalhaya markii la yiraahdana farxad buu markaa qofkaasi reereyn baa laga dareemaya haddii la yiraahdo wasiirka iyo ministerka ku amaanayayna ka sii daran ba maxaad u malaynaysaa nabiyullaahi muhammad calayhi salaatu wassalaam ayaa bilaal kule yaa bilaal xalaytoole kabahaaga shanqadhoodii baan jannada horteeda ka maqlay billaahi calaykum habeenka bilaal sidee buu ku saxday kula tahay farxad daradeed sidoo ku saxday mucaad habeenkii nabi maxamed maalintuu nabi maxamed mucaad bin jabal gacanta uu qabto kulaha wallahi inni la uhibbuka ya mucaad ilaahay baan ku dhaartay waan ku jecelahay walaalayaal waa rasuulka ilaahay hadalka waxa leh waa rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam ma aha shakhsi caadi ah hadalka qof kale inay yar oo 20 jirku u buuxsamin oo khasrajiya ayuu nabi maxamed gacanta tuu qabtay uu leeyahay wallahi inni la uhibbuka يا معاذ إلهي بان كو دارتي وان كو جعله ومحال لغو جعلادي رقاص او ايا جعلادي ما قبر با جعلادي ما مدحوينها جعلادي ما سياسي با جعلادات موديسا ما منافق با جعلادات مودي ومحمد عليه الصلاة والسلام خلقي إلهي أبو ري كي اوغو خير بنا اوغو شرف بنا اوغو كرامة بنا ايا كل يا معاذ والله إني لو أحبك haddaad meheradaada dhex joogto waxaad ka dhigan tahay adiga oo leh ilaahow meheradayda aan dhex joogaa kaa weyn oo kaa qiimo badan aadaankii oo dhacaya haddaad maqaayadda fadhidood qayilayso waxay ka dhigan tahay qayilaadda iyo fadhiga halka aan fadhiyo ayaa amarka ilaahay igala weyn bay ka dhigan tahay lisaanul qaal maha waxaad ku leedahay waa lisaanul xaal waxaad ku leedahay haddaad ubadkaaga la joogto aadaankii oo dhacayo aad maqlaysid waxay ka dhigan tahay inaad tidhi amarka ilaahay ee laygu yeedhay waxa igala qiimo badan ubadkayga igala qiimo badan waxallii wixii amarka ilaahay loo dayacaana ogow waxaasi uu dayacan yahay khalaas ninka salaada dayacayna wax kastana uu dayici salaada ninkii dayacay reerkiisa uu dayacay mas-uuliyad hadduu hayana uu dayacay tuu dooni haddii loo dhiiba uu dayacay waayo cumar binu khadaab radia allaahu canhu khilaafadiisii buu odhan jiray waryaada zamankii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyiga ayaa shaqaynayay qofka qalbigiisa waxa ku jira ayaa nebiga looga warramayey deedna markaasaa nebigu qofka uu kala garanayey ma muumin baa mise waa munaafiq mise waa kaafir amaa waxyigii uu go'ay buu yidhi annaga waxaan eegaynaa daahirkiinaan eegaynaa buu cumar binu khadaab ninkaan khayrka aragnana waan aaminaynaa
oo talada ummadda waxbaan uga dhiibanaynaa ninka khayr aan ka arki weynana aamini mayna buu Umar ibn Khattab in ayaa u yimid oo yidhi yaa amiir almu'miniin waatan dawladda islaamku ballaaratay aniga maad iga dhigtida maaragtaane waali maad iga dhigtida maaragtaane nin mas'uula oo magaalo maad iga dhigtida xaakim markaasuu Umar ku yidhi waad u qalantaa waa runta bari toolay kaalay buu yidhi noodkan kuu diyaarinaya magaalaan kuu dhiibaya oo amiirka ka dhigayaa nasiib ninkii wuxuu Umar ku soo noqday xilli Umar ibn Khattab ubadkiisii ay dhunkanayaan oo isaguna dhunkanaya oo ciyaalkiisii iyo isagu wada ciyaarayaan markaasuu yidhi yaa amiir almu'miniin oo ciyaalkay yarna ma dhunkanaysaa markaasuu Umar ku yidhi soo ubadkayga maaha maxaan u dhunkan waayey wallaahi anu intaasoo ubada ayaan dhalay buu yidhi oo weligay midna kama dhunkan buu yidhi ninkii markaasuu Umar ku yidhi warqaddaan kuu qoray ii dhiib warqaddu maxaa ku qornaa waddan dhan buu u magacaabay inuu ka noqdo amiir warqaddii intuu qaadu ka jeexjeexay markaasuu yidhi ubadkaagii baad u naxariisan weydee seed ummadda nebiga ugu naxariisan buu ka yidhi orodoo reerkaaga u naxariisan buu ka yidhi maa cindak raxma cala alahl kayfa tarxam cala alumma muxamadiya ubadkaagii baad u naxariisan weydood u damqani weydood dhunkani weyday ood wakhti ku bixini weyday ood tarbiyadayni weyday ood jeclaani weydee seed ummadda nebiga ugu naxariisan buu ka yidhi orad naxariista gurigaaga ka soo bilaab buu ka yidhi halkaa ka soo bara raxmadda diin dhinac walba kaa dhisaysaa ilaahayna siiyey innaka boqolkiiba boqol maanta mujtamaceenna haddaad meel walba marto ma aha waddankeenna oo keliya meel kasta caalamka mar maanta nuqsaan diineed baa taala caalamka nuqsaan adduunye ma taala adduunyadu way biiraysaa dhismuhu magaaladeenna Hargeysa muu biiraa mise uu naaqusmay war ii sheega wuu biirayaa soo ma bishii aan maqnaadeen soo noqdo meel cusub baa biiraysa adduunyadu way biiraysaa laakiin khayrkii muxuu la biiri laayahay maxaa diintu la biiri laadahay maxaa mujtamaceenna islaamnimadu kashkoogee laabtooda uga muuqan laadahay maxaa dhallinyaradeenni sunnadii nebigu uga muuqan laadahay adduunyada waa loo dadaalayaa laakiin diinta maanta cidna u dadaali mayso adduunyadu agoon maaha islaamihii baa adduunyada ka shaqaynaya oo inamadii baa adduunyada ka shaqaynaya oo rag iyo dumar baa adduunyada ka shaqaynaya diin shaqadeeda marka la soo gaarana culimmadaan ku riixaynaa bas aryaa ku riixnaa culimmada aanu caalim ma yihiin salaadda caalimka lagama rabo salaadda faradka caalimkaa laga rabaa jaahilkaa laga rabaa taajirkaa laga rabaa faqiirkaa laga rabaa madaxweynaha laga rabaa soonkana waa la mid ilaaha soonka faradkaaga dhigay salaadana faradkaaga dhigay diintan inaad wax gashatood u dadaashidna ilaahaasaa ku amray diinta inaad ka shaqayso inay diin noloshaada ay timaaddo mujtamaceenna diini ka muuqato dadaal bay nooga baahan tahay lidaalika zamankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam dadaalka diinta ummaddu umaysan kala hadhin wallaahi umay kala hadhin cajiib abu talxa ninka la odhan jiray waa ansaari buu ahaa ummu sulaym radia allaahu canha waa anas binu maalik hooyadii oo mu'minadoo muslimada ayuu damcay inuu guursado markaasuu u haasaawo yimiday inaan ku guursadaan rabaa ee ka warran waxay ku tidhi maad islaamtay markaasuu yidhi may laakiin diin baan haystaa anu bal gabadha hadalkay ugu jawaabtay eeg markaa bay ku tidhi diinteed haysataa afalaa tastaxyi maad xishoonayn bay ku tidhi maad xishoonayn diinteed haysataa ma ninkaaga qoriga caabudaya iyo dhagaxa la qoray caabudaya ayaa le diin baan haystaa xishoo bay ku tidhi diin ma haysatid diin annakaa haysanna diin waa diinta nebi maxamed uu la yimid calayhi salaatu wasalaam hadaa huwa diin markaasuu ka sii jeestay way ka daba hadasho waxay ku tidhi in aslamta fa innii laa uriidu minka sadaaqan hayrahu bay ku tidhi hadal macnihiisu ahaa yaa abaa talxa soo noqo bay ku tidhi haquusan kaalay haddaad soo islaamtid bay ku tidhi mahar iyo mariin dumarku ragga waxay xaq ugu lahaayeen kaa dooniba maaya islaamnimada aad soo gashay
ayaan meherkayga iyo mariinkayga u qaadan bay ku tidhi maxaa gabadha agteeda qiimo lahaa bal ii sheega ninkaa inuu islaamu naar ka badbaado cajiib oo islaame wuxuu yidhi ma intaa unba ahaa waxba iga dooni maysid waxba kaa dooni maayo islaam bas waayahay anas radia allaahu canhu oo khaadimkii nebigeenna ah oo iyadana inankeygiiya ayay ku tidhi hooyo gacanta qabo nebiga u gee sal alla alay slam markaasaa nebiga loo keenay markaasuu nebiga hortiisa ku ashahaatay markaasay ku tidhi soo celi anasow markuu islaamo markay u soo celiyey ayay ku tidhi haddaba anasow hooyada u guri bay ku tidhi yacni hooyada maanta laga bilaabaa ku ogow bay ku tidhi maaragtaane waa kaasa ninka maadaamuu ballankii buuxiyey anna ballankayga waan buuxiye waa ninkaygii bay tidhi abu طalxa gabadh cajiib ahayd ummu sulaym yaa rayta haweenkeennu may gabadhaa ku daydaana dumarkeennu hadday horumar doonayaan hadday taariikh fiican doonayaan hadday ilaahay radihiisa doonayaan may haweenkaa ku daydaana haweenka saxaabiyaadka abu طalxa caloosh uu la aqalgalay wiil bay u dhashay safar buu u baxay uu soo noqday markaas ilmihiioo xanuunsa buu ka baxay uu soo noqday markaasuu ku yidhi yaa ummu sulaym ilmahayga yaraa bal iga warran siduu yahay waxay tidhi sidii aad kaga tegtay uu ka xasilloonni badan yahee isqabooji bay ku tidhi xaaji iska naso safar baad ka timid isqabooji markuu habeenkii u dharkii dhigtay u yar nastay uu casheeyey gogashiina ay dul yimaadeen ee wada seexdeen saqdii dhexe ee xaaskiisiina ay is arkeen uu barakeeyey ayay ku tidhi intay badhida u fadhiisisay yaa abaa طalxa ay dhegayso su'aal baan ku weyddiine jaarkeenna haddaan alaab ka soo caariyaysanno oo alaabtoodii subaxda ay nagu yidhaahdaan alaabtii xalay aad naga qaadateen noo soo celiya ma u celin lahayd mise waa u diidi lahayd maya waan u celin lahayn buu ku yidhi markaabay tidhi haddaba ilmaheennii yaraa inakumaan lahayn ilaahay baa inoo dhiibtay ilaahay lahaabaa qaatee anigu waan sabre adiguna iska sabiro maydkiisiina waa ka halkaa ku duuduubana kaco iga soo aas bay ka tidhi taariikhda adduunyada gabdha caynkaasa ma soo marin mana soo mari doonaane ogaada ilmaheegii oo shafeecay oo mayda oo aqalka dhexdeeda u yaallood mare ku duuduuban ayay sariirtan ama faraashkan dushiisana ay ninkayga ku dul raalli gelisay uu yaabay abu طalxa maxaa tidhi waxay tidhi ha walwalin waa lana bare tarbiyad baa la baray iyaka inna lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wa kullu shayin cindahu biajalin musammaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxau saxaabadiisa ka dhaadhiciyey saxaabiyaadka gabdhihiisa ugu horreeyaan waxa uu baray waxa ilaahay uu qaadanay isaga unbaa iska leh waxaan haynana isaga unbaa inoo dhiibtay war maxbaan leenahay innagu ma lihid maalintaad hooyadaa ka soo baxday inanu hooyaday ka soo baxay walaa islaam baa ila socotay walaa inamaa ila socday walaa gabdhahaygaa ila socday mid walba keligii buu caloosha ka soo baxay keligiina caalamka uu ka baxayaa ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا وإذا وحيكون الشيء أذيقوا أويايا دتكون أكتاد أي فرح سيهين وإليهين ويل بعد الشيء محا نبحنا إليهين إلهي أمر قيس انت دادويدا كنا شهي إلالي ودينت إلالي وصلاة إلالي وأمرك إلهي إلالي سيمال انت دمان يسد هذا دويدا وقبح ذا أذيقوا فرحسن دتكون أكتاد أي كبر ورطان تربية دابا صحابة الله بري وحا إلهي وقاتنا يساقون باسكاله وحان هاي سننا إلهي جل وعلا يساقون بينور ديبتي يلوان هي واكا ميتك واكا سكعس وآس بيكتري لأن مركاسو أبو طلحة رضي الله عنه وحوسم مركا وحوتك النبي عليه الصلاة والسلام رسول كيف أشهقي مركا أبو النبي كيري أعرستم الليلة يا أبا طلحة يا أبا طلحة حليتو لي مال عروستيو عروس ماذا هيدو حاجيات إسلام هذا حالي ما بركيسي مركاسو يا رسول الله مركان عشيي يدينا أم بركي كذب أي أرنت إيش يكتبوا كيري مركا أبو النبي كيري بارك الله في ليلتكما اسأرقيني حاليتو الله إني بركي أبو كيري اسأرقي حاليتو الله إني بركي هبنكي دعادي با إلهي وأقبلي
caloosheediiba habeenkiiba riximka ilmaa u galay ilmihii wuxuu noqday wiil buu noqday wiilkii maalintuu dhashayna nebi maxamed baa loo keenay cabdullaahi buu nebigu u bixiyey yaa taxniigga nebiga u sameeyey magaca nebiga u bixiyey dhartii nebi maxamed baa lagu qabtoo lagu ciyaarsiiyey waxaa uu yidhi sufyaan bin cuyayna waxaa la arkay ilmihii yaraa oo 9 wiiloo culamaaya isaguna dhalay ilmo barakaysan muxuu dhalay muxuu dhalaa sheegade awlaad barakaysan buu dhalay mid barjeeyana muxuu dhalay mid barjeeyoon buu dhalay qabiili buu dhalay qabqabluu dhalay siyaasi buu dhalay laakiin ninka diinigu diini buu dhalay ninka barakaysan reer duriyad barakaysan buu dhalay ilmo barakaysan buu ahaa barakadiisa waxaa u daliila habeenkuu riximka ku dhacay buu nebigu yidhi baaraka allaahu fii laylatikumaa is-araggiinni xalaytol allah inii barakeeyo maalintuu dhashayna dhabta nebi maxamed baa lagu ciyaarsiiyey taxniigga nebiga u sameeyey magaciisana nebiga u magacaabay sufyaan bin cuyayna oo ruwaatulxadiis ka mid ahaana wuxuu yidhi 9 wiiloo culamuu ilmihii dhalay buu yidhi allaahu akbar haadihi ummu sulaym radia allaahu canha walaalayaal dadkaas agtooda diintaa qiimo la lahayd gabadhaas budcigeegii bay ku iibsatay diin meher iyo marin waxay xaq u lahayd waxay ka door biday inuu abu talxa diinta islaamka soo galo innaguna maanta muslim walaalkeenna oo qaraabadeenna oo talkeenna ayaa agteenna bilaa salaad ku dhimanaya goormaan diinta u sheegnaa ma taqaanaa soomaalidu goorma isku gurmataa markuu qofku dhinto markaa unbay baraarugi ma la aasay qabrigiisii ma la tegey nacashkii ma la soo qaaday kafankii ma loo soo gooyey badh reerkii oo dhan baa qabuuraha iman maxay kuu qabanayaan waa kaas waar intuu qofku nool yahaa la rabaa gacanta in la soo qabto miskiidka la keeno lagu noqnoqdo loo duceeyo la ikraamo markaska la geeyo dacwadda lagu soo xidho loo dulqaato loo sabro loo kaadiyo laga quusan ambiyadu ma quustaan dee diintu dadaalkaa bay nooga baahan tahe kulligeen insha allah dadaalka diinta ma guddoonnaa insha allah dhahada war si fiican u hadlo insha allah dhahada diinta dadaalkeega han guddoonno oo marka laga idhahdaa wakhtigaaga qaybi oo ilaahay darti u bax marka laga idhaahdo xagga dambe ha eegin xagga dambe ma taqaanaa islaanta meheradda ubadka waa xagga dambe وحق دنبه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره معاكو حقا فسوف يدعو ثبورا ويصلى معاكو حقا إنه كان في أهله مسرورا حق دنبها إيجن رير كان ضيع لكم له هضيع رير كاغا كاجها كاجتجن بلا مصاريف كاجتجن sidii ninkii nebiga u yimid yidhi awrkayga maan dabraa mise ilaahay baan u tala saartaa muxuu ku jawaabay nebigu awrkaaga dabar ilaahayna tala saaro reerkaaga masaariiftooda uga teg ilaahay dartiina u baxa wakhtigaaga yar qaybi is yar qorshee insha allah dhahada walkeenna allah ha shaafiyo mawtaadkeenna allah u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meelay joogaan muwaafaqiin midnimana allah ha siiyo طاعة الله إنهم معانيه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا سند من لا سند له ويا عماد من لا عماد له يا منجي الغرغى يا منقذ الهلكى يا أمان الخائفين ويا جار المستجيرين إلهي سيدي ومولاي هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك أمرتنا فتركنا نهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا أكرم الأكرمين أكرمنا بنور الإيمان اللهم ردنا إليك ردا جميلا ألف بين قلوبنا اصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اخرجنا من الظلمات إلى النور جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين